allow adigaan ku aaminayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والهليال waxaan rabaa halkan inaan idinkugu soo jeediyo insha Allah qoraal uu qoray Sheekh Maxamed Idris oo uu ku qoray boggiisa Facebook oo uu kaga hadlayo ninkani bogga qoray boggii uu haddii aad xasuustaan Sheekh Umal uu radinayo sidaan ayuu ku bilaabay. Cabdi Saciid iyo bogga ridada. Markii aan arkay bogga magaca korkiisa ku qoran waxaan rumaysan waayay inuu yahay ninkaan aqaanay ee Makka al-Mukarrama allaha ilaalshee sanado badan aan isla deganayn oo isku naqaanay. Si aan shakiga uga baxo ayaan wacay nin ay walaalo yihiin oo khiyaara Dr. Cabdirashiid Ismaaciil. Wuxuu ii sheegay inuu isagii yahay. Marna ma aanan filan waxa bogga laga soo sheegay inuu qorayo Cabdi Saciid, inkastoo xoogaa naqdi aan ku ogaa. Cabdi wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo afgaaban. jaamacadda Qura ee Makka al-Mukarrama ayuu dhiganayay waqtigaas aan bartay qaybta dhaqaalaha Islaamiga, Islamic Finance and Islamic Economics waxa loo yaqaan. wuxuu ogaantay qaatay heerka koowaad iyo labaad ee jaamacadda, BSc iyo Master Degrees, wuxuuna bilaabay heerka saddexaad ee PhD. laakiin ogaantay ma uusan ku dhammaysan. kadibna wuxuu u guuray gudaha Soomaaliya oo uu ka shaqaynayay. adduunyadu waa imtixaan, fitnadeeduna way badan tahay, waana kala duwan tahay. waxaase ugu dhib badan oo aan laga soo waaqsan karin fitnada diinta. musiibooyinka adduunkuna way badan yihiin, laakiin waxaa ugu dhib badan musiibada diinta ka gaarta. sidaas darteed ayay ahayd ducadii nabiga sallallahu calayhi wasallam micnaheedu ahaa ilaahow musiibadayada diintayada ka dhigin. waayo musiibada adduunyo waa laga soo waaqsan karaa, laakiin tan diinta ka gaarta waa ayaan darada ugu weyn ee aan ka harin. Cabdi Saciid wuxuu faraha la galay meel halis ah. Ilaahay nama fidnayo. rag badan oo horay u galayna ay la tagtay oo hog xun ku riday. diintana waxba yeeli mayso. kuwa hore oo ka adag ayaa isku dayay arrimahan uu hadda qoray iyo ka daran, laakiin iyaga ayaa meel xun ku dambeeyay. diinta iyo dacwadana wax ma yeelin. tiisuna kama duwana, laakiin isagay ku habboon tahay inuu isdaba qabto haddiiba daba qabasho jirto. 100 sano ka hor wadaad ashari oo Cali Cabdirasaaq la dhaho ayaa qoray kitaab la yiraahdo Al-Islaam wa Usuulul Xukum, Islaamka iyo aasaaska xukunka. dulucdiisuna ahayd Islaamka xukun shaqo kuma leh, diinta iyo xukunkana la kala geeyo. reer galbeedka iyo cilmaaniyadda ayaa u sacab tuntay, laakiin ummadda islaamku waa tuftay. rag ayaa ku dayday uu ka mid ahaa qoraagii weynaa Khalid Maxamed Khalid, ninkii qoray rijaal xawla rasuul. wuxuu isna qoray kitaab la dhaho min huna nabda, halkan ayaan ka bilaabaynaa, oo uu kaga hadlay inaan diintu xukunka shaqo ku lahayn. laakiin Khalid Maxamed Khalid allaha u naxariistee 30 sano kadib intaan dhiman ayuu fikirkaas ka noqday oo wuxuu qoray kitaab kale oo la yiraahdo Al-Xukuuma Al-Islaamiya. waxay ila tahay kitaab ilaahay iyo diintiisa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada lagu maagay inaanu meel la gaari hayn. diintayna
diintana waxba yeelahayn. qofkii qoray unbaa fidno inuu ku dhaco ay qornayde, diinta iyo dacwadu uma joogsanayso, ummaduna way tuftaa ilaahay amarkii. culimadu ayaa ku filan inay ka hadlaan. insha allah hadalkooda ha lasii sheergarayo ama ha la faafiyo. wax badan ayaan lasii wadwadin oo dacaayad la samayn. dadka kalena waxba yay isku mashquulin oo raadin kitaabkan xunka ah oo aan qiimaha lahayn. inahaw hana fidnayn oo dariiqaaga xaqa naga sug. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.